horumarka waddan kasta waxaa budhig iyo aasaas u ah bixinta canshuuraha iyo adeegyada guud ee dawladda qaado wixii ka dambeeyay asaaskii Puntland ee sanadii 1998 waxaa si xadaysan loo qaadayay canshuuraha kala duwan ee bariga kuwaasi oo ay qaadaan dawladda hoose ee Puntland si loo fuliyo adeegyada muhiimka ah ee ay bulshada u baahan tahay si bulshada loo hormariyo reer Garowe inaad bixisaan canshuuraha leeyahay ku leeyahay oo sanadlaha iyo tan maalinlaha labadaba inaad bixisaan taasu waa waajibaadka ina wada saaran si bulshada loo hormariyo looga shaqeeyo nadaafadda looga shaqeeyo amniga looga shaqeeyo dhammaan dadka kala duwan oo abaaraha ku dhacay si loo taageero inaad la baxdaan waxyaabaha leeyahay ku leeyahay dawladda hoose ee degmada Garowe waxay bedeshay habkii qaadista hore ee canshuuraha sanadlaha ee guryaha iyadoona u guurtay hab casri ah oo ka dheer musuqmaasuq iyo wixii la halmaala sida ay sheegayaan madaxda dawladda hoose ee degmada Garowe rasiidkaas qofka in loo keeni doono oo biiris ah sida caalamku uu gaaray horumarka u gaaray ee waqadaas qofka la siinayaa guriga loogu imaanayaa ida la ciidii joogta haday kiraala tahay iyo haday tahay qof guriga labadaba warqadaas la siinayaa qofka warqada marka la siiyo halkaas uu kala soconayaa waxa lagu leeyahay oo ku qoran guriga cabirkiisa iyo qiimaha markii la isku dhuftay duu dabaq yahay iyo duu dabaq suga yahay iyo duu guri caadi yahay labadaba halkaas uu kala soconayaa markaas uu keenayaa xafiiska ama cid Allah ciidii u timaada uu maartay u dhiibay si marka loo ilaaliyo sumaasuqa iyo maartay wax isdabamarinta ay loo kobciyo hufnaanta iyo dakhliga degmada waxaa lagu guuleystay in la sameeyo programkan waa oo shaqeeya xaafadaha magaalada hadda waxaa ku jira 5 xaafadood waxaa noo dhiman 2 xaafadood dhawaan aan bilaabano ah xaafadda Horseed iyo Waabari kuwa kale oo dhan waan gelinay guriyahina waa la lambariyay qof walbana biilka lagu soo dalacayo waxa ku yaala lambarka gurigiisa ku dhagan oo birta lambarkeeda waxaana marka dadweynuhu inay ku wacyigelinaadaan ayna ogaadaan in aysan bixin lacag aan lahayn biil madaxa waaxda dakhliga dawladda hoose ee degmada Garowe Cabdirashiid Ciise Dabaylo Qore waxa uu sheegay in dadka ugu badan ee ka dhaga adeega bixinta canshuuraha ay yihiin dadka hantiilayaasha ah dadka cashuurta ugu badan oo hadda aan ku yaabanahay waxa kamid ah inta la xafiiska joogo oo dadka lacagta haysta ninka awarta qudaarta fariisata suuqa inji daily talk balaga suuxdii dhigtay hore bay ka dhigtay iyadoo wax kale caruurteedu u wiciisay hore ka dhigtay waxay ogtahay meesha xasanayso iyaale dawladda hoosaasaysa inta doonta la gaashay qof kasta oo muwaadin ah si uu maaragtay magaalada horumarkeeda uga qayb qaato in uu bixiyo cashuurta una ku xisaabtamo oo uu yiraahdo maxaa loo qabtay miisaaniyadu maxay ahayd imse ahayd see ku kala baxday annagu diyaar waxaan u nahay in aanu soo dhajino oo aanu boor u sameeyno miisaaniyada dawladda hoose iyo xisaab xirka dawladda hoose maxaana soo galay maxay ku baxeen iyagii oo cad inaanu darbi ku dhajino oo dadku ay daawan karaan oo ay akhrisan karaan Garowe waa magaalo ka koraysa dhinacyada ganacsiga bilicda balaarinta jidadka iyo dhirayn lixaad leh oo lagu sameeyay jidadka magaalada bilihii ugu dambeeyay waxayna ka mid tahay magaalooyinka ugu wanaagsan Soomaaliya dhanka bilicda iyo wadooyinka Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe